in badan oo kamid ah waxa laga yaabaa inaysan weligood isweydiin waa maxay video ama muuqaal ee lagu barto maadada multimedia. haddii lagu weydiiyo waa maxay multimedia, jawaabtu waxay noqonaysaa multimedia waa maadada lagu barto afar shay: sawir, cod, qoraal iyo video. dabcan haddana waxaan baranaynaa video wuxuu ka koobnaan karaa sawir iyo cod iyo qoraal oo hal meel isku geeyay. si dhowrkan waxyaabo la isku geeyo oo lagu sameeyo muuqaal waxaa loo baahan yahay in la qabto shaqo muhiim ah. shaqadaas oo la yiraahdo video editing oo ah cilmigan hadda baranayno. sidoo kale si loo sameeyo video editing waa in la helo barnaamij lagu qabto hawshaas. waana sababta aan u baranayno barnaamijka KineMaster oo ah mid aan si fiican ugu fahmayno video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا أنا هلكن كوميدوني waxaan leeyahay maalin wanaagsan inta habeen u tahayna waxaan leeyahay habeen wanaagsan. sidoo kale akhyaarta cusubna waxaan leeyahay ku soo dhawaada xarunta Amir Lafoole oo ah meel laga barto cilmiga IT oo ku baxa af Soomaali. waxaad mar walba iga daawanaysan YouTube-ka Amir Lafoole iyo page-kan ku leeyahay Facebook Amir Lafoole. waxaad sidoo kale igala soo xiriiri kartaan email-ka shaashada ku qoran. waa mar kale iyo cashar cusub. waa casharkeeni labaad ee basiga barashada muuqaal samaynta video editing for beginners. cashirkeenu maanta wuxuu ku saabsan shay oo muhiim u ah barashada muuqaal samaynta ama markaad baranayso video editing. fahamka guud ee videoga ama waxyaabaha uu ka kooban yahay videoga ama muuqaalku. sida caadiga ahna waxaan weli ku guda jirnaa barashada KineMaster. KineMaster haddii aadan aqoon waa application video editor ah oo lagu isticmaalo telefoonka. waxaad ka soo degsan kartaa Google Play Store haddii aad isticmaashid Android smartphone ama tablet. sidoo kale waxaad ka soo degsan kartaa App Store haddii aad isticmaashid iPhone ama iPad. ama haddii kale linkiga programka laga soo degsado waxaan mar walba idin soo dhigayaa description-ka muuqaalka. casharkeeni koowaad waxaan ku soo qaadanay fahamka guud ee barnaamijka KineMaster iyo qaybaha uu ka kooban yahay. anagoo ka bilownay halkan oo ah meesha laga galo markaad wax cusub sameynaysid. kadibna halkan oo ah step-ka labaad ayaan ka dooranay qaabka ama style-ka uu noqon doono muuqaalka aan sameynayno. kadibna halkan ayuu ina keenay si aan soo galno media aan ka sameeyno clipkeena. anagoo baranay daaqadahan oo dhan iyo qayb kamid ah toolskooda iyo waxyaabaha ay qabtaan. kadib markii aan sawirka soo galnay wuxuu inoo yimi qaybtan timeline-ka. kadibna waxaan ku sameynay edit. haddaba intii aan guda galin casharkeena labaad fadlan waxaan kaa codsanay inaadan ka boodin casharkii koowaad ee aad soo daawatid calal aqal ka soo qaadatid faham guud. haddii aad rabtid si aad u heshid casharka koowaad waxaad ka helaysaa channelka. waxaan sidoo kale idin soo dhigayaa description-ka muuqaalkan. ama haddii aad iga daawanayso YouTube waxaan casharka koowaad soo gelinayaa geeskan kore ee ka soo baxaan kaararku ee loo yaqaan calaamadda ayda. haddii aad weydo calaamadda ayda waxaad ku dhufanaysaa saddex dhibcood ee geeskan kore yaalla. halkan markii uu ku keenana waxaad riixaysaa meeshaan ay ku qoran tahay From Amir Lafoole. kadib halkan ayay kaga soo baxayaan muuqaalada aan soo geliyo calaamadda ayda. haddii aad rabto inaanu ku dhaafin cashar walba aan soo geliyo channelka subscribe sar calaamadda gambaleelkana furo. sidoo kale haddii aad iga daawanayso Facebook muuqaalka like saar casharkana share garay si aad dad badan uga faa'iidaysid anigana ay dhiirigelin igu noqoto. wixii fariimo ahna commentiga igu reeb adoo mahadsan. ku soo dhawaada casharkeena maanta. wax kastoo aan baranayno waxaan ka bilaabaynaa erey bixinta ama waxa loo yaqaano terms ama mustalahaad. marka si aynu ku fududaato barashada cilmiga muuqaal samaynta waa inaynu fahmayno magacyada loo yaqaan waxyaabaha aan samaynayno. haddii aan halkan ay ku qoran tahay media ka soo galno sawir isla markaa sawirku uu halkan yimaado wuxuu noqonayaa video. macnaha sawirkan meesha uu ka bilaabmo ilaa iyo halka uu ku dhammaado waa video bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii. marka maadaama wax walba halkan soo gala ay noqonayaan video waxaan hadda laga bilaabo adeegsanaynaa ama ugu yeeraynaa magaca clip. ama maadaama uu yahay waxa ugu dambeeya waxyaabaha halkan yaal mararka qaarkood waxaan ugu yeeraa background. laakiin haddii waxa halkan yaalo uu yahay video markaan eegno halkan shaashada ah haddii aan videoga sidaan u dhaqaajino ilaa dhammaadka ma arkayno wax isbedel ah. maxay tahay sababtu? sababtu waa videoga oo ka kooban hal sawir. haddii aynu badino kilibyada ama aynu bedelno midabada sawirkan waxaan ogaanaynaa in waxaanu dhab ahaantii yahay video.
markastoo aan isticmaalayo barnaamijka KineMaster Media markaan ka soo geliyo halkan wuxuu galayaa qaybtan aan waxa la yiraahdaa clip. laakiin haddaan ka soo geliyo halkan ay ku qoran tahay layers waxaan arkaynaa inuu imaanayo qaybtan ka hooseysa clipka. sidoo kale waxaan arkaynaa sawirka aan soo gelino ka soo baxayo shaashada fiidiyowga. haddii aan koobiyo ama soo geliyo sawir kale wuxuu ka hoos marayaa sawirkii hore. clipka markuu halkan yahay wax kasta oo ka hooseeya waxa la yiraahdaa layers. layersku waxay noqon karaan sawirro, muuqaalo, codad, qoraallo ama stickers. layerska waxaan ku qaadan doonaa 10 dhammaystiran haddii Ilaahay idmo, laakiin haddii aan faham guud ka qaadano layers waxa la yiraahdaa waxyaabo sidaan isku dul saaran, kala hooseeya ama kala koreeya. layersku waxay mar walba dul saaran yihiin clipka. tusaale haddaan soo qaadano farqiga u dhaxeeya clipka iyo layerka. sawirkan wax yar soo eeg. sawirkan waxayna ka muuqdaa telefisyoon, ubax iyo waxyaabo kale, laakiin waxaan arkaynaa waxyaabahan oo dhan in uu hayo ama ay saaran yihiin darbiga halkan ka muuqda. haddii darbigan meesha laga saaro waxba ma arkayno. darbiga ayaa wax ugu muhiimsan. haddii mid ka mid ah sawirada ku jira layerska aan masaxo, sawirku wuxuu ka baxayaa fiidiyowga, laakiin waxaan arkaynaa shaqadeeda halkan waxba iskama bedelin. balse haddii aan tuuro clipka fiidiyowga maxaa dhacaya? waxaan arkaynaa inay halkan ka dhacday masiibo aad u weyn. fiidiyowgii laga yaabo inaad si weyn ugu soo dhibtootay, hal tallaabo aad si qalad ah u samaysay, ama laga yaabo inay si aan ku talagal ahayn gacantu kaaga dhacdo, ayaa waxay sababtay in wax walba ay noqdaan sagxadda. laakiin si aad masiibadaas uga badbaadid, sida aan casharkeennii hore ku soo qaadanay, nasiib wanaag barnaamijka KineMaster wuxuu halkan kuugu diyaariyey undo oo ah adeeg kuu fududeynaya inaad ka noqotid tallaabadii ugu dambeysay ee aad qaaday. dabcan tallaabadii ugu dambeysay ee aan qaaday haddii aan mar labaad taabtano tallaabadii ka horreysay. haddii aan mar labaad taabto halkan ay ku qoran tahay undo, waxaan arkayaa inuu halkan ii soo celiyo sawirkii layerka ahaa ee aan masaxay inta aanan masixin fiidiyowga. laakiin halkan ay taalo calaamadda undo, halkan ka hooseysa waxaan arkaynaa calaamad kale oo u eg. calaamaddan waxaa la yidhaha redo, waxay cagsi isku yihiin undo. waxay dib u qaadaysaa mar walba tallaabadii ugu dambeysay ee aad ka noqotay. iska ilaali inaad isku qaladid labadan calaamadood. sida kaliya ee aad ku kala saari kartid waa in mar walba ay horeyso undo. si aan idin tuso wax ay qabato redo, markii aan isticmaalayay undo wixii ugu dambeeyay aan soo celiyay wuxuu ahaa sawirkan layerka ah halkaan ka masax markii hore. haddii aan taabto kaliya calaamadda redo waxaan arkayaa inuu sawirkii dib u masaxay. haddii aan mar labaad taabto calaamadda redo waxa hubaal ah inuu masaxayo fiidiyowga. sida ay dad badan iga soo codsadeen, waxaan haddii Ilaahay idmo isku dayi doonaa inaan asbuuc walba soo geliyo 2 cashar. casharka soo socda waxaan ku soo qaadan doonaa kilibyada iyo sida ay u shaqeeyaan, annagoo markaa soo gelin doona kilibyo badan isla markaana saari doona cod. si aad ula socotid taxanaha iska hubi inaad channelka subscribe saartid isla markaana aad furtay calaamadda gambaleelka si uu kuu soo gaaro casharka isla markaan soo geliyo. wixii fariimo iyo su'aalahana commentiga igu rib adoo mahadsan. intaan casharkiisa kale ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.